habdhiska difaaca. Marka laga yimaado in liin dhanaantu ay qani ku tahay xaddi badan oo fitamiin C ah, waxay ka hortagtaa inuu daciifo habdhiska difaaca ee jirku si aanu ugu nuglaanin xanuunada. Dheelitirka pH-ka. Cabidda liin dhanaan la miiray oo lagu diray biyo diiran subax kasta waxay ka caawinaysaa joogteynta isu dheelitirka acid iyo base. Infekshanka. Midhaha liin dhanaanta oo la miiray waxay leeyihiin astaamo awood badan oo ay iskaga caabiyi karaan bakteeriyada. Isticmaalka liin dhanaantu waxay ka caawin kartaa inay la dagaalanto infekshan. Sunta. Midhaha liin dhanaanta oo lagu diray biyo diiran oo kuleyl xiga waxay awood u leeyihiin inay jirka ka saaraan sunta ku jirta. Dheefshiidka. Liin dhanaanta iyo biyaha diiran oo la isku qasay si wanaagsan oo taxadir leh waxay sare u qaadaan caafimaadka habdhiska dheefshiidka. Macdano iyo fitamiino. Cabitaanka liin dhanaanta iyo biyaha diiran. Marka laga yimaado in liin dhanaantu ay qani ku tahay fitamiin C, waxa kale oo ku jira macdano badan oo muhiim u ah caafimaadka sida potassium, calcium, phosphorus, magnesium iyo kuwo kale oo badan. Durayga ama hargabka. Liin dhanaanta iyo biyaha diiran ee la isku qasay waxay la dagaalamaan durayga ama hargabka. Maqaarka ama dubka. Liin dhanaanta lagu diray biyaha kuleyl xigeenka ah sida la tijaabiyay waxay dawo u tahay xanuunada maqaarka ku dhaca iyo isbedelada qaarkood sida finanka wejiga iyo maqaarka oo laablaab. Miisaan dhimidda. Liinta la miiray ee lagu diray biyaha diiran ee qandac ahi waxay xal u tahay buurnida ama cayilka. Waxay sare u qaadaa shaqada dheefshiidka iyo habka cunno burburinta. Beerka. Liin dhanaantu waxay ka caawisaa beerka inuu saaro sumaha. Beerku waa xubinta jirka u qaabilsan in jirka noolaha laga saaro sumaha. Bararka. Liin dhanaantu waxay ka hortagtaa infekshanka habdhiska neef-mareenka ku dhaca, una xanuunka iyo xoqadaha oo qofka barara. Iskoysyada iyo murqaha. Biyo diiran oo lagu daray liin dhanaanta oo la miiray waxay inaga saacidi kartaa inay hoos u dhigto kaarka murqaha iyo iskoysyada. Ilkaha iyo ciridka. Joogteynta cabitaanka liin dhanaanta oo lagu qasay biyo diiran waxay ka hortag fiican u tahay sida lagu xaqiijiyay cilmi baarisyo kala duwan oo la sameeyay ilka xanuunka iyo xanuunada ku dhaca ciridka. Fuuqbaxa. Liin dhanaanta iyo biyaha diiran ee la isku milay waxay ka hortagaan fuuqbaxa jirka waxaana joogteeyay macdanaha kala duwan ee ku jira dhiig wareegga. Mindhicirada. Liin dhanaanta oo biyo diiran lagu qasay waxay ka caawin kartaa joogteynta shaqada mindhicirada iyo dhaqdhaqaaqiisa si caadi ah.